bal ka waran haddii hooyada hortaada lagu dili lahaa oo lagu gowraci lahaa naftana lagu dhaafin lahaa kaaga say darane ayadoo hooyada keliga wax caruura ka haysato oo ina wax kale caruura haysanin sidoo kaleetana aadan wax u qaban karin saaxiibayaal muuqaalka aad doonaysaan igu sheega commentska si aan idin soo khulaaseeyo Dini Podcast hoyga daraamada caalamka hana ka iloomin subscribe filinka sawjeed wuxuu ka bilaabanaa hooyadoo si xun loo dilaya iyadoo wiilkeeda luuqa ka fiirinayo waxba uu qaban karin maadaama wiilku markaan aad ugu daayar yahay uu jiro 8 sano uu wax u qaban karin hooyadiis ayaa hortiisa lagu dilaya kuuna laga siina waliba si xun loo dilaya sawjeedin waa la marjinayaa si xun loo dilaya waxaa loo soo xiraa ninkaana u jeedin oo lagu magacaabo Siyuun waxaa la dambigaas adiga ayaa gashay maxkamadda ayaa la keenay sawjeedin boolis ayaa soo qabteen oo si wadaan laakiin kaaga daran wiilkii yara ayaa inda aad u naxariis daran ku fiirinaya asagoo aad u murugaysan maadaama hortiisa hooyadii lagu dilay sawjeedin hadda ninkii waa la soo wadaa wiilka oo aad u murugaysan oo aad u ooynaya ayuu fiirinaya ka bacdina ninkii waa la soo wadaa waa iska sii deynaya dambi melid ayaa la dhahaa markii la dambi melid banaanka ayuu aadaa dadka wuxuu dilaa oo meelahaas baabuurta iyo gawaarida sarsan ayuu si xun u dilaa maadaama ninkaas Siyuun dhaw uu yahay nin miskiin u jiran waxaana la sheegay inuu miskiin jiradan ka qaaday markii hooyadan la dilay saad u jeedin wadadan ayuu iskaga soo lugeynaa haddana nin kale ayuu qabanaa ninkan ayuu beerka ka tumistaa islaaka muxuu beerka ka tuma asaga ayaa beerka laga tuma oo si xun loo dilaa maxkamaddu waxay u maleeynaysaa inuu ama boolisku waxay u maleeyeen inuu ninkan Siyuun dilay wiilka Siyuun ee yariska hooyadiis laakiinse asaga ma dilin asagii ayaa hadda la dilay oo lagu kala baxay taas waa aragteen markaan laakiin Siyuun oo ah wiilka hooyadiis la dilay wuxuu isku dayaa inuu aad u tababarto oo tababar cajiib ah sameeyo siduu hooyadiis ugu soo ahaan wuxuuna ku biirayaa booliska laakiin hooyadiis qofka dilay qofka u maleynay isma laha waxaanan ku arki doonaa filinkeena waxaanan ka rajaynaynaa inaad u fiirsatid qaab hadar leh si aad adigana ugu faa'iidid wax aad u wanaagsan hadda ninkaana u jeedin waa nin dilaa ah balse laakiin nin aad loo arkaayo ma ahan waa nin inta badan filinka qarsoonaanayo ama aan la arkaynin laakiin hadda Siyuun oo ah wiilka hooyadiis la dilay ayaa wuxuu imaanaya gabartaano aad u jiran oo aad u xanuunsan ayada laftirkeeda waxaa dhibaato u soo geystay ninka dilay hooyadiis wuxuu isku dayayaa inuu daweeyo uu dhakhtar u keeno laakiinse waxaa imaanaya ninkii dilaaga ahaa dhakhtarka laftirkiisa beerka ayaa laga garaacaa afka dhiig ayaa ka imaanaya sa u jeedin oo dhakhtarka waxaa la dhahay waay aad u daweynay qofaan aniga dilay stubrin gabartaana u jeedin oo lagu magacaabo ayaa soo baxaysa ninka magaalada maayarka ka ayay u imaanaysaa waana gabar wariye ah warbixintan ayay la wadaagaysaa waxayna leedahay waxaa jira nin dilaa oo dadka dilo kaasuuna boolisku ku baraarugsaneen waxaan kaa rajaynaynaa in aad ku baraarugto ninkan waana nin dad badan dilay qoraalka ayuu hadda akhrinayaa sida u yeedhin maayarka waxaana warbixintan la wadaagayo waa gabartan wariye ee raayo gabarta ayaa isku dayaysa inay si degan wax ugu sharaxdo maadaama maayarka warbixintan ay tahay warbixin aad u culus uuna si fudud ku fahmi karin waxay isku dayaysaa inay si fudud wax ku sharaxdo hadda saa u jeedin Siyuun oo booliska waxoogaa la soo qabsanayo oo waxoogaa maxaa leeyahay awood soo yeelanayo waqtiga uu qalin jibin laana uu soo dhadayay ayaa wuxuu ka dhageysanaa TV-ga ama qaybahan kale inuu ninkan koofiga wato oo dilaaga ah inuu jiro markaan ayaa waxaa ku dhalanaya fikir ah yaa waay ninkan dilaaga ah teleefankiisa ayuu akhrinayaa wuxuu arkaa article ee warbaahinada daabaceen oo ninkan koofiga wato oo wajigiisa la arkin ee dilaaga ah inuu yahay nin jira markaan ayaa waxaa ku dhalanaysa Siyuun waa wiilka hoos hortiisa lagu dilay aan fahansiye markaan waxaa ku dhalanaysa fikrad cusub oo ah hooyada cidda dishay waa inaa ogaatid maadaama ninkii Siyuun la dhahay la soo daayay oo maxkamaddu wax dambiga ku weysay sida saxda ah ay tahay asaga laftirkiisa ninkii Siyuun meel cilaa xitaa lagu kala qaad oo la gowracay oo la dilay markaan wiilka yariska baraarug ayaa u dhalanayo warbixinada iyo TV-yada iyo waxa dhan dhiig iyo dad wajiyaashooda la qari iyo waxaas ay daabacayaan ninkan hadda u jeedin waa kala dhoo ayaa looga shakinaa waxaa la lahaa ninkan ayaan uga shakisanaa booliska ayaa ninkan soo bandhigayaan waxaa dhaa ninkan baakilda
baakalkan hadda ka dabagay waa nin ganacsada oo hanti aad u fiican haysto dad banaan baxyaalay soo baxayaan aad u banaan baxeen dadkii waa la dhameeyay dadkii waa la dilay dawladda waa inay wax noo qabato ay dhaxayaan meesha hadda koor banaan baxayaan waa maayarka guriga hortiis ah meeshaana waa meel gobol oo ka tirsan dalka Kuuriya laakiin wiilkii Sinjun ah wuu tababartay wuu isdhisay kharash xitaa maanta wuu hayaa balse laakiin intuu wax ka bilaaba asaga markaas aad ayuu u yaraa wuxuu kaliya un arkay hooyadiis oo la dilahayo iyo sidoo kale wuxuu u jeeday ninkii Ilaahay Sinjun ee soo qabanayeen booliska sidoo kale maxkamadda la saaray ee dambiga lagu weynayo balse laakiin wax kale oo caadayn ah ma hayo laakiin si qaabka nolosha iyo qaabkiisa kale wuu isdhisay hadda saa u jeedin waxaa la soo weeraraa mid ka mida istaafjida hoteelada ugu weyn magaalada laftirkiisa waa la jarjaraa waa la nagoogeynaa kow ayaana laga siinaa balse laakiin meel cillaah ayaa looga tagaa dhaawiciisa gabar ayaa imaanaysa oo meesha ka soo dhacaysa gabarta laftirkeeda mindayal gari waa cararaysaa waa la bursanaa waxaa la deen waxshad meesha ayay ku dhacaysaa waxaa la ma qarinay mise ma qarinaysid sababta waxaa haleelay dilaagii weynaa ee Sinjun hooyadiis ma qarinay mise ma qarinaysid Allah waa inay qarisid hadda ay qarin weysna adigana waa ku jarjara oo nafta ayaa ku dhaafina ayuu ku dhaxab gabarta waxay dhahaysaa haydin waxa ku qarnaa laakiin markan waxaa imaanaya ninkii la dhahay Falbian oo idan hore filimka ugu soo arkay ninkaas ayuu isku day inuu la dagaalamo wuu la dagaalamaa wuu aad ayuu la dagaalamaa wuu dhaawaca marka uu dhaawacana maxaa la dhahay wuu ka soo tagaa oo gaari ayuu soo qaadana gaariga marka uu soo qaato wuu soo soconaa wuu soo ordaa gabartii ayaa laftirkeeda maxaa la aadan gaariga soo qaadanaysa meesha inaan saydo ordaysa booliska ka hormaan maxaa kugu dhacay maxaa soo aragtay si wixiina lahaa wiilkii hotelka lagu soo dhaawacayay oo meyd ah ayaa waxaa la keenay isbitaal asigii xitaa ninkii maxaa la dhahay ahaa dambiilaha oo dadka dilay si xun ayaa loo dirtay laakiin dildilka waxa ka doona markaan maxaa la warbaahinta ay waxay daawacaysaa in ninkii uu dad badan dhaawacay saa u jeedin Sinjun ayaa warbaahinta si aad u qoso dheer u dhageysanaya maadaama uu rabo inuu hooyadiis u aaro ilaa nin hooyadiis lagu hordilay haddana kharash badan iyo waqti badan oo tababar uu ka baxay mar walba wuxuu rabaa in aarsano bal ka waran ninka halista badan ee la la'yahay markaasaa u jeedin dadkii dhan ayaa isku imaanaya meeshii oo waxyaala ku qorqornaa raadadkan iyo meeshii wax ku dilay wixii ayaa la imaanayaa ninkii maxaa la dhahay magaalada ka talinayay oo duqa magaalada ah ayaa imaanaya markuu imaadana qoraalihii iyo wixii raad lahay ayaa la isku geegeynaa waxaana la isku dayay in la sameeyo baaritaan dhab ah sida lagu helo ninkaas gabartan oo jeedin oo wariye ah ayaa waxay dhahaysaa waxaan hayaa xog balse haddaan xogtaas soo gudbiyo ma helayaa in la damiinto oo anigana nafteeda la damiinto oon anigana la dil maadaama uu yahay ninkan nin halis ah oo qofkii raadka meeshu dhigo ama wax ka sheego ama maanta ayuu meeshaas mardhay nafta dhaafinayo hadda sa u jeedin waxaan helay warqad ninka yaraantiisii ah warqadan ayaa la baahinayaa sa u jeedin Sinjun waa wiil kooyis la dilay oo rab inuu aasado argagax badan uu ku dhacay wareer badan uu hayo habeen iyo maalinna aan muruga la ordin ayaa wuxuu markaa isku dayayaa inuu noqdo aarsadaha warqado artikalo message u soo dhacay waxyaalo hore oo taariikha ayuu akhrinayaa marka waxyaalahaas markuu akhriyo wuxuu isku dayaa in uu mar uu aarsado saa marka u jeedin kalaab ayuu imaanaa balse laakiin asaga kalaabkaan imaanay keliya waxa uu imaanayaa inuu meeshan information ama xog dheeriya ka helo gabartay u jeedin ee wariyahayd ayaa wuxuu la sameynaa maxaa la wada sheekays iyo wada laakiin keliya gabarta wuxuu ka rabaa inuu xog ka helo xogtaas marka uu ka helana uu isku day suu ninkaas ku dili lahaa uu hooyadiis uga aarin lahaa sababtoo ah waa wiil hooyadiis jecel kalaabka ayuu ka soo laabanaa kalaabkii markuu ka soo laabto magaalada ayuu soo aadaasa u jeedin wakaas meel oo geerish iyo waxaas ayuu iskaga lugeynaya warqad ayuu helaya warqadan ayuu akhrinaya balse laakiin warqadan waxay noqonaysaa caddayn aad u weyn wuxuu ogaanaa warqadan inuu hadda ka hor meel wax uga gatay marka warqadan ayuu ku raadinaya waxbaan arkay miyuu sacbin waxbaan arkay raad ayaa ii baxay ee aad iyo aad u socodnaa wiilkii kale ayaa kalaabkiisa ordaay gaari ayuu soo qaadanaa raadka aad aragtay maxaa waa dhahay raadkan wuxuu noqon doonaa raadkii ay ninkan ku raadin lahaayeen kuna dili lahaayeen markaan lacag ayuu meesha ku daadinaa aad u tiro badan lacagtaan haguubin yanagna lacagta guunya dhayaa mutaqana waa ninka hooyadiis dilay marka ninkan inuu soo bixiyo meeshan ayuu ku jiray ninka ayuu meesha ku qabanaa xasuus
ilmo yaryar iyo wuxuu dilayo arkaa lacagta ayuu gooyaa ninkii hooyadiis dilay ayuu meesha ku qabanaa bog iyo xabad ayuu ka garaacaa waxaana noqonaa nin aarsado oo hooyadiis u xaro ka waran adoo 12 sano jirtay haddii intii hooyada lagu hordilo hooyada u aartid qof Soomaali saas ma laga helaa waa may dadka Soomaalida kaliya soo jeedada ninkii dhiig badan ka daadiyay booliska ayaa soo bandhigay booliska laftirkiisa ayaa hadda shir ayuu qaban doonaa ninkii asagoo meel ku xiran oo bahdil ayaa la soo jeedin booliska ayaa shir qabanaa waxa la ninkii ugu dambeyn maadaama wiilkii Sinjuun uu tababarnaa booliska wiil boolis ka tir ayaa soo afjaray oo soo qabtay sidaas ayaana nafta lagu dhaafiyay ee hadda laga bilaabo cabsida la iska dhaafto cabsida hala iska dhaafo qisada waxaa ka faa'iidanaa inta TikTok iyo naaga dabada wareejinay iyo wax aan macno lahayn ka dab ordi lahayd kaliya suu wiilkan u fikir aad ay u mahadsantiin